odayaashii waxgaradka ku nool degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo kulan ku yeeshay degmada Wallaweyn ayaa ka hadlay saameynta uu ku reebay dagaalo ku soo laablaabtay degmada iyagoona ugu baaqay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabtaan dagaalada sababay dhimasho iyo dhaawac ee ka taagan degmada Wallaweyn ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose waxayna shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Wallaweyn ay u soo jeediyeen inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka degmada dagaal badan iyo siniinan nagadi oo Wallaweyn shan caleemo dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe waa inkii baaqana Soomaaliyeed wali degan Wallaweyn nabada inkii baaqana nabad absi ma ila ma inkii baaqana muslimnimada daraadiya inkii baaqoyn may ku odsadaan madaxweynaha Koonfur Galbeed abdaasiis lafta gareen eed boqolkiiba boqol ma xasantaan madaxweynaha oo farmaajo سلامة بقولت مئة فرت القرآن قد إنساك سلامة شرفت اسم صوبيدان إيدا صوبيدان ما يدافع جيج شال هذا جر لهيت وحيد لما هذا إلهي إن الحديث الدنيا آخر ورتان إلهي أفيو شركة جراد وين قواني باق نبضت أو إندرانو لما الدولة كفر قلبات يو دولة فترالك أو كقيب قاعدين نبدأ هذا جاج وإن أنت كفتينه nabadoon Abuukar Maamow Cabdiyow agoonka awdheed ayaa ugu baaqay qaybaha dirirtu ay ku dhexmartay degmada Wallaweyn inay joojiyaan dagaalka isla markaana ay ka shaqeeyaan nabadda shalay way dhamaatay maato una way indoodo inay maatada shalay dhamaati ama dhimasho haato ama dhaawac haato ama beer hinkaseeto ama hinkaseetoy heersho hinkaseetoy iyo ku doodo hayne taas hal loo dhaafooy mid liin dulqaadeedu korma muddooyinkan ayaa waxaa dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac ka soconayay degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana soo kordhayay baaqyada nabadeed ay dirayaan samadoonada nabadoonada ee ka soo jeeda degmada Wallaweyn ee ku aadan in la joojiyo dagaalada lagana shaqeeyo horumarka nabadda Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.